ujeeddada xarigaygu waxa laga lahaa ujeeddooyin waaweyn bay xukuumadda ku lahayd. waxaa la doonayey in awda laga rido colaad la mida tii laascaanood baa la doonayey. waxaa la doonayey in lagu helo cimri dherer iyo in laga dhigto jid doorashada lagu diido. waxaa la doonayey in la geliyo deegaankayga xaalad amni darro oo meesha ka saarta doodda siyaasadeed ee aan qabno. waayo ma jirin dembi aan galayn, ma jirin dembi aan qaran ka galay, ma jirin dembi aan qof ka galay oo aan xadhig ku mutaysan karayn. waxaa la doonayaa waa kuma maxamed abib muxuu maxamed abib rabaa muxuu doonayaa baa la isweydiinayaa. waxaan u sheegayaa ma ihiin nin aragtida uu qabo xadhig iyo cagajuglayn uga tanaasuli kara. waan ugu celinayaa in badanna waan u qeexa. ma ihi nin dagaal loo haliilayo iyo dhib waddanka laga rido lagu xalaalaysan karo aniga liigama heli kara taana. maxamed abiib waxaan aaminsanahay aragtidii mahatma gandhi baan anuu aaminsanahay. in badanna warbaahintaad waad iga maqasheen. anuu waxa aan doonayo ee dalkan inaan ka hagaajina aan doonayo aragtidaan aaminsanahay diyaar baanu ahay. xadhig iska daaya inaanu dhintaan jecla laakiin inaan qof dilo ma doonayo aragtidaan aaminsanahay. waayo hadduu qofku doonayo inuu qof dilo de waa dilaadee laakiin nooleeyo maaha. sidaa darteed anuu dadku inay nolol helaan baan doonayaa. taasaan u taaganahay. in aniga lii dilay waan ogolahay. waxaanan leehay way xidheen ayar bay xidheen mar horena waan sheegeen haddaa bareerii dilaysaan iyo haddaa afka soo duubanaysaanba diyaar baana. haddiise ay sii socoto kutumashada sharciga iyo tacaddigu waa waajib in cid kasta oo lagu xadgudbayaa ay isdifaacdo. diinta islaamkaana saa ogol qof buu isdifaacaya. walaalayaal dan yarta ayaanu qalbi jilicsanahay ee inta kibirsan uma qalbi jilicsani uma naxo. caadifadaydu inta liidata ayay la jirtaa. siyaasaddaydase caqliga ayaa xukuma, garaadka ayaa xukuma, calooshuna ma hogaamisaana siyaasaddayda. waxaan u taaganahay cadaalad iyo sinaan. waxaan doonayaa dal iyo dad isleh oo ujeeddo ku midaysan baan doonayaa oo aan loo qayqaybin qabiil iyo xaafad. waxaan doonayaa dal aan madaxdiisu ka ceeshin masaakiintiisuna aanay ku dhex gaajoonin baan doonayaa. dadkooda ladan una sharcigu qaban ka miskiinkaana xabsiyada laga buuxiyo. dal sharciyadiisa iyo qawaaniintiisa aan keliya lagu fulin dadka masaakiintaan doonayaa. dal isla xisaabtanku xalaal iyo sharci ka yahay baan doonayaa. intaasba waxaa iga maraga sidaan dalkiiyo dadka ugu shaqeeyey ee aan danaha shacabka uga doodayey intii aan xilka hayay. gabigii afkuriyaan kusoo gabagabaynaya intaa waxaa leeyahay yay noqon baahidu baqay oo anaa riday baga iyo kufaanfaan baacsa iyo tafiirgo. ha ahaato baahidu kasbasaasay subagii biixi jabay kabkabiddii hambukooday baantii bulsho liicda kicinteed. intaana afguriyaa loo naxariistay ayaan ka soo ammaanaysanay. sidaana damiirkayga ayaa ii sheegaya xaalka dalku haddii aan tusaale yar idinka siinayana waxaa ka mid ah xabsiga aan ku jiray ee mandheera waxaa ku xidhnaa 700 oo qof. kuma jirin mas-uul hantida ummadda boobay oo la xidhay kuma jirin mas-uul qof shacaba si qalada ugu xadgudbay kuma jirin xaakin intuu xukunka xumeeyey ee ummadda si cadaalad u xukumi waayey la xidhay kuma jirin kuwii ciidanka qaranka jabiyey kuma jirno xabsiga mandheero qof kama xidhnayn. kuwii dalkan xuduudihiisa soo koobayna hal qof kama xidhnayn. waxaa ku xidhnaa dad masaakiina oo qaarkood dulmiyo cadcad ood arkaysa lagu soo xukumay baa ku xidhnaa. intaasaana tusaalaydu ku filan. qodobka saddexaad waxaan u gudbayaa reer odal baan u gudbayaan la hadlayaa.
muuse xadhigga maxamed abiib maanuu ii jeeday mise ree awdal buu jeeday labadeeda kuu jeeday qodobada soo socda caddaynaya muuse oo boorama jooga inuu xadhiggayga amro ujeeddo nooco ayuu ka lahaa maaliga ayuu ii jeeday mise reer awdal ayuu jeeday muuse wuxuu jeeday reer awdal buu jeeday waayo xadhiggayga wuxuu amri karayey isagoo hargeysa jooga wuxuu amri karayey isagoo maad aragtay xarunta madaxtooyada joogu amri karayey muuse iyadoo laga sugayay inuu raaligelinayaa boolojaas ka bixiyo godobtii iyo dembiguu ka galay guud ahaan reer awdal oo dhan ee uu ku sameeyey ugaaskoodii xabadda noolnool la dhacay markuu boorama tegey halkii boolojaas laga sugayey wuxuu yidhi wardada boolojaas u qalmama tiidine kan kale dib meelaha ka hadlaa waan xidhayaa amar buu soo bixiyo aanu xidhay sidaa darteed aniga muu jeedin idinku idin jeedin wuxuu ahaa xadhiggaasi waxba ma tiidina isagoo cod doonaya inuu aniga xidho maanta wuxuu ahaa waxba ma tiidina waxbana idinkama baahni cod haddaan idinka baahda bay ahayd waan idinka iibsan ama xoog baan idinkaga qaadanaya markaan kuwiinna wax garanaya xidhxidho ujeeddada taasina waxay caddaynaysaa inuu ree awdal u jeeday bay caddaynaysaa un aniga ii jeedin haddaan wax intaa ka badan idinka baahdana wuxuu yidhi sidaan idin maali jiray baan idin maalaya waa garanayaayo kolba doqon baan boorima ka soo qaadanaya ujeedooyinka aan leeyahay ka dhex fuliyaan soo qaadanayaan wixii noole aragtideeda diidana dhegtaan ka dhufanayaabee taasina waxay caddaynaysaa inuu muuse aniga ii jeedin oo reer awdal u jeeday haddaa garanaysaan iyo haddeedaan garanaynba wuxuu idiin samaystay yidhi ujeeddaa wuxuu samaystay kala qaybi oo ku dhex abuur kuwa gef kasta oo aad gelayso kuu fuliya kuwaasina way badan yihiin iyagoo waaweyn iyagoo yararba muuse u shaqaynaya ugu dambayntii reer awdal waxaan leehay waad ku mahadsantihin sidaad ii dhegaysateen maalintii hore ee aan isku nimi boorima waxaad mar labaad ku mahadsantihiin sidaad ii dhegaysateen anoo jeelka ku jira oo xidhan oo aydaan u samaynin wixii uu muuse doonayey oo ahaa in mudaharaad iyo dagaaluu ka dhaco gobolka uu ka helo cimri dherer iyo maad aragtay iyo wakti uu doorashada ku diido uu ka helo aad iyo aad baan idinka mahadnaqaya dad badani waxaa laga yaabaa inay dhaliilsan yihiin markii maxamed abiib maad aragtay la xidhay maxay reer booraba u hadli waa u mudaharadi weyn anaa diiday anaa ku yidhi fadhiya maanta wuxuu maalin walba muuse doonayo halka kalean ka taagannaha muuse hadduu mudaharaad doonayo nabadaynu doonaynaa maalinta uuna mudaharaad doonayn waa lagu mudaharaadaya muuse aad iyo aad baa taana ugu mahadsantihiin